بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما يجوز قتله. واحد dilkiisu banaan yahay baabkiisii هذا محله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول من أحاديث الباب. حديث ugu horeeya عن عائشة waxaa laga wariyay عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى rasuulkiisu qaala inuu yidhi: 5 5 min adawaabi daabadaha ka mida kulluhuna 5 dhammaanteed fawaasiqu faasiqyaalo weeye. yuqtalna waa la dilayaa 5 fi lxarami, xaramka dhexdiisaa lagu dilayaa. alguraabu baa la dilayaa buu yihi, guraabkii tukihii iyo walxidaatu dafadii iyo walcaqrabu dibqaloocii iyo walfaaratu jiirkii iyo walkalbu eygi alcaquuru ee faylagooyaha ahaa, caygii wax dhaawici jiray. walimuslimin imaamu muslim waxaa u sugnaaday yuqtalu waxaa la dilayaa 5 5 fawaasiqu faasiqyaal ah fi lxilli, xilliga dhexdiisa lagu dilayaa. walxarami wa fi lxarami, xaramka dhexdiisa ayaa lagu dilayaa. caaisha bint abi bakrin gabadha la yihahdo radia allahu tacaala canha waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulkiisu qaala inuu yihi: 5 5 min adawaabi daabadaha ka mid a. daabadaha kullu maa yadubu calaa wajhi alardi baa la yidhaha, wax allaaliya waxa dhulka korkiisa ku raadadeeyay oo ku socsocda, ama 4 lugood ha ku socdeen, ama 2 lugood ha ku socdeen, ama caloosha ha ku socdeen, ama 44 ha ku socdeen. wax allaaliya dhulka korkiisa waxa ku socda o dhana waxaa la yidhaha daabad la yidhahdaa. marka 5 ka mid a waxa dhulka korkiisa ku socsocda, kulluhuna dhammaantood fawaasiqu faasiqyaalo weeye, waa kuwa daacada ka baxay. yuqtalna waa la dilayaa fisqigaa dartii fi lxarami, xaramka dhexdiisaa lagu dilayaa. riwaayadan iyadaahoo markaa xaramka ay la xaramka keliya lagu sheegay, xilliga aan lagu sheegin, dee mar haddii xaramka la sheegay isaga xilligii kasii baabul awlu noqonaya, inkastoo riwaayada muslimka ay kugu soo socoto xilliga iyo xaramka in ay isla mid yihiin. markaas alguraabu baa la dilayaa tukihii anwaacdiisii oo dhan, inkastoo riwaayaadka qaarkood alguraabu alabqacu ay ku soo aroortay, kii macnaha sidaasaa musunta qaar ku taala. marka alguraabu tukihii iyo walxidaatu dafadii buu yidhi, baashaa dafada la yidhaahdo, iyo walcaqrabu dibqaloocii buu yidhi, bahalka hangaralaha ama dibqalooca la yidhaahdo, iyo walfaaratu jiirkii iyo walkalbu eygi alcaquuru ee wax dhaawicidda badnaa buu yidhi wey, ey dibadeedkay dhihi jireen, alkalbu alcaquuru, eygii wax dhaawicidda badnaa. walimuslimin waa eygaasaan cidina markaas aysan tarbiyeysan oo cid waxbaratay aan la arag, oo cid ku ugaaratay aan la arag, oo ciduu beero u ilaaliyay, ciduu xoolo u ilaaliyay midna aan la aragay, iska ey dibadeedka ah markaas wixii u arka oo meelahaas ka ugaarsado isagu dhaawaco iskiisa isagu oo wax disho wax cuna kaas ayaa loo jeedaa. walimuslimin imaamu muslim waxaa u sugnaaday buu yihi 5 yuqtalu waxaa la dilayaa 5 buu yihi, 5 fawaasiqu faasiqyaal ah. fi lxilli baa lagu dilayaa xilligii, xaramu maka dabadiisaa lagu dilayaa. walxarami wa fi lxarami, xaramka dhexdiisana waa lagu dilayaa buu yihi. xaramkii oo dawaabta kaleta in lagu diliyo geedaha in laga gooya midna aysan banaanayn ba iyaga haddii lagu arka lagu dilaya. baabu dukuuli makata, maka iyo wagayrihi. baabu dukuuli makata, maka gelitaankeedii wagayrihi, gayri dukuuli, dukuulka kayrkii. waxaan halkan uga hadlaynaa buri musanifku raximah llahu tacaala, magaalada maka gelitaankeeda iyo gelitaanka kayrkiis oo joogitaankeedii iyo waxyaalihii kala axkaamtii ka ratimaysay axaadiistii ku soo aroortay ayaan halkan uga hadlaynaa buri musanifku raximah llahu tacaala.
الحديث الأول حديث كوغور عن أنس بن مالك وحال قوري أنس بن مالك صحابي قال لي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك دخل مكة مقالة مكايو قال عام الفتح فرشد سند كيدي وعلى رأسه والحال على رأسه إساقا مجحي سكرتي سنة المغفر كوفي برفع هذا يكون سقنطاي فلما نزعه مركو سيبي النبي صلى الله عليه وسلم المغفر كي مركو سيبي جاءه النبي وحاوي من رجل نين فقال الرجل كي وحجر ابن خطال ينكا ابن خطال ليره هذا متعلق مد كل جنوية بأسطار الكعبة كعبة مريه دو كل جنيه فقال رسولكم مركاو حجر اقتلوه دلبويل هل كي سهل لقود دلبويل صحابي أنس بن مالك ليره هذا خادمك رسولك أها في أنصارات وحال قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك دخل مكة مقالة مكايو قلي عام الفتح فرشد سند كيديبو قلي سندي مقالة وقبن يبو قلي النبي صلى الله عليه وسلم سندي سيديدات وعلى رأسي والحال على رأسي مدحي سكركي سنة المغفر كوفيدي بيرتا هضايتاي كوفيدي دقالك بيرتا هذا حلقات كيس السلطان كسم اسناد يضو مدحي وصارنتهاي أيو مركز ومقالة قليبين فلما نزعه مركو سيبي النبي صلى الله عليه وسلم كوفيدي بيرتاد مركو سيبي مركو يسود دياريين وقبيسته سيو مركز مقالة انت لغبتي سيو مركز وأخذ بي رسولك صلوات الله وسلامه عليه جاءه النبي وحاوي من الرجل النبوي من فقال مركزه وحيري ابن خضل منك ابن خضل لديه شري فقال الرجل كيبا وحيري ابن خضل منك هنا خضل لديه شري متعلق مد كل جنوية بأسطار الكعبة كعبة مريه دو كل جنيه ابن خضل منك لديه شري كعبة أيوم مجن قلي وحو كل جنيه كعبة مريه هذا فقال رسولكم مركاو حين اقتلوه دلبيل هل دلبيل يعني الجودين كعبة كل جناشة وكل جنيه هي مجنقلك مريض وكل جنيه مجنقلك ومجنقلي هل دلبيل نينك استجا ابن خضر الذي يشري محدثين ثم قاعدين سأل واحد ترى بدنا يكون شيء قال ما يعسوه ضربها هذا وحوها نين انت إسلامي أيو مركز أصدقوا نين مسلم أبو وحو سمي أما وانين صحابيه ترتمين هذا أما وانين صحابيه سفر ولا قلين هذا أما وعدون أصدقوا خدميني هذا وحي لأن محدثين وحيالا بدنا يكون شيء نين مسلم مبودلي نين مسلم مبودلي نين كاسي waxay ku sheegeen inuu ahaa adoon asagu lahaa oo muslim ah inay kuwa waxay ku sheegeen in muslimuhu ay tartameen inuu ahaa kuwa waxay ku sheegeen inuu ahaa nin muslimuhu safar ay wada galeen nin muslimuhu dilay ninkaas markuu dilay wuu fakaday wuu ridoobay gaaladu haleelay intaas wuxuu ku sii daray naaga fanaaniinhu inta samaystay ayay nabiga caayay jireen salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi nabiga caayay jireen marka dadkii la hadur yeelay oo muxadisiinta iyo kutubu siyarka culamaa siyarka qaarba ay ku sheegeen ilaa 12 qaar gaarsiiyeen qaarna ay yiraahdeen lixay ku ekaayeen dadkii la hadur yeelay oo laga soo reebay markii la yiri magaalada markii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu qabanayay ogeysiiskii la yiri naadi ninka la yiraahdo Abi Sufyaan Sakhr ibn Harb guriga Abi Sufyaan qofkii galay waa aamin masjidka qofkii galana waa aamin albaabkiisa qofkii hoos ka soo xirtaana waa aamin dadkii saddexda qaybood magaalada loo qaybiyay dad laga soo reebay baa jiro la hadur yeelo la yiri meeshii lagu dilay meeshii lagu arkay ka lagu dilo ibn Khadal iyo labadii sinaagood oo fanaaniinta ahaa oo u heesi jiro nabiga oo caayay jiray dadkaas ay kamid ahaayeen la hadur yeelay isagii marka halkaas ayaa lagu haleelay halkaas qaduhu ku haleelay labadii naagoodna midna la dilay midna cagahay ku baxsatay فقال مركز رسولك وحيد صلى الله عليه وسلم اقتلوه دلبيل الحديث الثاني حديث كلابادنا وحديث طباب ككمله عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر نينك ليلهدا وحا لغا وري عن عبد الله بن عمر ان كو يراهدو عبد الله بن عمر وحا لغا وري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك يسوع دخل مكة مقالة مكة يوصوق علي من كذائن مكان كذا اللي يرهدون كسوق علي من الثنية كرنتي حق يدو كسوق علي ثنية العليا ياسر ريسي
allatii taniyadaasoo bilbadxaa makaanka badxa la yidhahdo ku sugneed wakharaja wuuna baxay magaalada markuu ka baxayana min athaniyati sufla karintii hooseysay buu ka baxay buu yidhi wey rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyhi cabdullahi bni cumara isagoo ka sheekeynaya caadadiisii mustamirada aheedoo magaaladaas maka marka uu gelayo iyo marka uu ka baxayo dhinaca uu doonaba safarkiisu ha ku jeedo dhinacuu doonaba safarkiisu ha ka yimaado magaalada markuu gelayo hal dariiquu kasoo geli jiray markastoo uu baxayana hal dariiquu ka bixi jiray cabdullahi bni cumar oo caadadaa ka sheekeynaya wuxuu yihi dakhalna rasuula allahi sala allahu alay wasalam ilaa rasuulkiisu dakhala wuxuu galay makata magaalada mako min kadaa-in makaanka kadaa la yidhahdo uu kasoo galay min athaniyati buu kasoo galay haniyadii xaggeeda haniyadii alculyaa sarraysay buu yihi wey haniyat alculyaa karintaa sarraysa ayuu xaggeeda kasoo galay dariiqa labada buurood dhexdooda kasoo baxa oo macnaha magaalada deegaan ahaan meesha ay ku taalla ka sarrayso meel ka sarraysa ah ayuu magaalada kasoo geli jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi wuxuuna ku ishaarayey baa layidhi magaalada uu gelayahay inay tahay magaalo ka sarraysa magaalooyinka caalamka intooda kaleeto allatii haniyadaasoo bilbadxaa makaanka badxa la yidhahdo ku sugneed wakharaja wuxuuna ka baxay min athaniyati sufla karintii hooseysay xaggeeda ayuu ka baxay haniyada haniyatu sufla la yidhaahdo ayuu markuu baxayana safarkiisu dhinacuu doonaba ku jeeday uu ka bixi jiray rasuulku sala allahu aleyh ali wasalam taana wuxuu ku ishaarayey ba layidhi meesha uu u socdaahay inay tahay meel ka hooseyso meesha uu ka baxayo sida ayay ku sheegeen muxadisiintu alxadiidu thaalitثu xadiidka saddexaadna can cabdillahi bni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala ina cumar inuu yihi dakhala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa rasuulkiisa ayaa wuxuu galay albeyta kacbada wa usaamatuna wuu galay biusaama ibni zayd usaamatu bni zaydina wuu galay wa bilaalun bilaalna wuu galay wa cuhmaan bnu dalxata cuhmaan ibni dalxa alxajabina wuu galay fa aklaquu way xidhan calayhim iyaga korkooda albaabkay isku xidhan falamaa fataxuu albaaba albaabka markay fureen kuntu waxaan ahaa bu yidhi awala daakhilin mid gala kii ugu horreeyey falaqiitu bilaalan bilaal baan la kulmay fasa'altuhu waxaan wax ka weydiiyey camaa sallaa wuxuu tukaday hal sallaa miyuu tukaday fiihi beytka dhexdiisii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa rasuulkiisa qaala markaa bilaal wuxuu yidhi nacam haa wuu tukaday bayna alcamuudeyni labada tiir dhexdooduu ku tukaday camuudeynkii alyamaniyeyni ee yamanta loo nisbeeyey saxaabiga cabdullahi bni cumara la yidhaahdo itibaaca rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi cid ku gaarta saxaabada aan laga heli jirin ayaa wuxuu yihi dakhala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa rasuulkiisu wuxuu galay albeyta kacbada ayuu rasuulku galay salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyh waa kow xajatulwadaaci buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyhi uu kacbada galay sanadii tobnaad wa usaamatuna wuu galay usaamatu bni zaydin usaama ibni zaydna wuu la galay rasuulka wuu ka daba galay wa bilaalun khaadimiintii rasuulka bilaal ibnu rabax ninkii la dhihi jirana asna wuu la galay wa cuhmaanu ibnu dalxata alxajabi ninkii la dhihi jiray ee asagu kacbada furaheeda hayana wuu la galay afartoodaasaa galeen fa aklaquu marka zaxmadii inay ku badato ayay ka cabsadeen oo markaas albaabka inta dadkao dhan iska soo buuxiyo hal irid ayay kacbadu laheed daaqadana maysan lahayn waxba markaas inta lagu ciriiriyo markaas ay xikmadii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi uu usoo galoo dhan meesha ay ka baxdo fa aklaquu markaa way xidhan calayhim iyo korkooda albaabkii bay ku xidhan albaabkii bay hoosta ka xirteen u yidhi cabdullahi bni cumar wuxuu rabay marka inuu asagu wax ka galo wixii rasuulku uu sameeyena uu sameeyo waa ninka itibaacaad ku og tahay siduu ku ahaa albaabkiibuu marka isku aatiyey markii ay xireen soo xirteen albaabkiibuu isku aatiyey falamaa fataxuu lbaaba albaabka markay fureen kuntu waxaan ahaa buu yidhi awala daakhilin mid gala kii ugu horreeyey baan ahaa markay inta galeen soo baxeen albaabkii inta fureen soo baxeen qofkii galo ugu horreeyey aniga ahaa buu yidhi falaqiitu bilaalan bilaal baan la kulmay bilaalan iridka isaga hor nimid buu yidhi fasa'altuhu waxaan weydiiyey hal sallaa miyuu tukaday fiihi beytka dhexdiisa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa rasuulkiisu miyuu ku tukaday saasaan weydiiyey buu yidhi qaala wuxuu yidhi nacam haa wuu tukaday bayna alcamuudeyni sallaa rasuulku wuxuu ku tukaday bayna alcamuudeyni labada tiir dhexdooda camuudeynkii alyamaniyeyni yamanta loo nisbeeyey labadaa tiir ee dhinaca yamanta xigta albaabka kacbada midka ku xiga
albaabka kacbada midka ku xiga asaga iyo markaas asaga iyo albaabka kacbada uu u dhexeeyo makaanka multazamka la yidhahdo iyo xajarulaswadka macnaha xajarulaswadkaan ku yidhahdo multazamkayana ku dhihina albaabka kacbada iyo isaga uu udhexeeyo xajarulaswadka u udhexeeyo rugniga iyo rugniga kaleoo ka dambeeyo asaga gadaalkiisa ku aadan labadaa dhexdoodu ku tukaday buu yidhi yamaaniyeenka dhexdoodu ku tukaday buu yidhi ma rugnaynka ma ahan camudeynka yamaaniyeenka le waa rugnaynka ma ahan rugnaynka weye kuwaasaan tilmaamay camudeynku waa tiirar gudaha ku jiray weye masjidka gudihiisa kacbada gudaheeda kuwa ku jiray weye labada tiir oo macnaha gudaha ku jirta oo yamaaniyeenka oo dhinaca yamanta xigto oo rugnaynka yamaaniyeenka dhinacooda xiga ayuu ku tukaday buu yidhi labadaasuu dhexdeeda ku tukaday cabdullahi ibni cumar wuxuu ka shalaayi jiray ma aanan weydiinu yidhi rasuulku imisuu tukaday ma aanan weydiin cabdullahi ibni cumar wuu tegey suu usii socday rugnaynkii yamaaniyeenkaha camudeynkii yamaaniyeenkaha ee soo qaabilayuu dhexdooda istaagay derbiga kacbada ee isagu markaas albaabka soo qaabilaya albaabka kacbada derbiga soo qaabilaya oo ku beegan xaggiisuu qaabilay rugnaynkii camudeynkii yamaaniyeenkaha dhexdoodu istaagay 2 ragca ayuu tukaday dib dambu wuxuu dhigi jiray inkastoo saxaabadu ay caddeeyeen haddana wuxuu dhigi jiray ma aanan weydiin bilaal markii aan weydiinayey salaaduu tukaday mise ay ahayd 2 ragco isagu tukaday wuu soo baxay صلى wuxuu tukaday bayna alcamudeyn labada tiir dhexdooda camudeynka alyamaniyeyn yamanta loo nisbeeyo dhinaca yamanta xigeen الحديث الرابع حديث فرضنا عن عبد الله بن عن عمر أنكو إلى عمر بن الخطاب وحال قوري رضي الله تعالى عنه يا أنه عمر بن الخطاب جاء إنه يمد إلى الحجر بقي حيبه يمد حجر كان سودي مدوبا فقبله مركاسور كضيبين وقال وحنير عمر بن الخطاب إني أنا أقول أعلم وحنوجه أنك أدوك حجر ونجحناتهي لا تضر إن هذا محدبين بانوجه ولا تنفع وحنين هذا ننفعين بانوجه ولولا أني أنا رأيت إن أركيه دين الله النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك يسوى كل كان ينا ما قبلتك لن كدين بيري وحال قوري صحابي قال هذا عمر بن الخطاب أنه يسوى جاء يمد إلى الحجر الأسود نجح مذوب ويمد نجح حجر الأسود كان هذا كعبة قديه هذا كشري دربي هذا كسوة هذا أيوه يمد فقبله مركاسون كضيبين وحي رسولك وكو سمين شري صلوات الله وسلامه عليه أيو كدل سمين اتباعا للرسول تقبيل كيو وضع الجبهدي استلام كيو وحي يردن وكو سمين وقال مركاسو وحي روا مركي أساق خلافة ديسي حلقي مدحونا إسلام كواها وقال مسلمين تيردن وهقامين إياه مسلمين تنكوا بدنا وحا كوشي رسولك صلوات الله وسلامه عليه أن لسوا كل من مركا أو دوان سوا إسلامي با كوشي wuxuu ka cabsada marka kuwaasi inay macnaha waxa ku soo jiri jirtay azmaan fara badan oo jaahiliyo oo asna dhagxaan iyo la caabudi jiray asnaam la caabudi jiray baa soo martay waxa laga yaabaa kuwa cusub oo markii soo islaamay inay ku jiraan asnaamta caabuditaankeeda hadda laga soo fujiyay inay ku jiraan cabsi markaas uu ka qabo inay moodaan عمر بن الخطاب dhagaxani inuu sanam u yahay oo kaleeto inuu caabudo iyo wax sidaas oo kaleeto kuwa islaamnimada ay ku cusub tahay iyo inuu nafci iyo dur uu ka rajaynayo uu ka raadinayo iyo wax lamid ah oo kaleeto dad uu kaga cabsanayo dadka muslimiinta ku jiray markaasuu wuxuu sameeyay markaas waxa uu dhagaxan u dhunkanayahay acmaasha dusiisa uu ku sameeynayo oo dhan waxa uu sababta ugu sameeynayo itibaacan lil rasuul inay tahay ayuu markaa cadeeyo wuxuu yiri anigu waxaan ogahay inaad dhagax tahay inaadan nafci lahayna waan ogahay dur inaadan lahayna waan ogahay haddana markii nabiyullaahi maxamed ku dhunkanayana kumaana dhunkadeen idan dhunkashadaydu waxa weeye waa itibaacan lirasuuli nabi maxamed aan ku raacay salawaatu alayhi wasalaamu alayhi sidaa yiri inni anigu la aclamu waxaan ogahay annaka adigu xajarun dhagax inaad tahay yiri qaala markaas wuxuu yiri inni anigu la aclamu waxaan ogahay annaka adigu xajarun dhagax inaad tahay laa tadurru inaadan wax dhibin baan ogahay walaa tanfacu inaadan wax anficina waan ogahay walowlaa annii anigu ra'aytu nabiya inaan arka haddii la laayahay sala allahu calayhi waali wasalam yuqabiluka isagoo ku dhunkanayana ما قبلتك كما أنا منكذين بيلي. الحديث الخامس حديث كشناد رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عباس وحال قولي عبد الله بن عباس حابق اللي هذا رضي الله تعالى عنهما
قال إنه يجري بالجوري عبد الله بن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كيسا صوغل وأصحابه أصحابتي سنة ويصوغل مكة مقالة مكة. فقال المشركون مشركين تبا وحي هذا إنه حال يشان يقدموا حاسوغل عليكم كركي نقوم قلا يسوع قال ينقوم قد وهندهم أي ضعيف صي أي تبرد الرئيسي حمى يثربا قال دي مدينة اللي يشرق عند دي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركاوح عمري أن يرملوا إني فعليان الأشواط كلالكي أشواط دي ثلاثة يصدح ضعهيد وأن يمشوا إيني سعدان ما بين الرقنين رقنين كيمانيين لحظة الحمد لله يدكم الله سبحانه وأن يمشوا إيني سعدان ما بين الرقنين رقنين كلحظة دي لبدي رقنين لحظة رقنين كاليمانيين يمنتلون نسبيين معناه ما بين الرقنين لبدا رقنين لحظة دين سعدان ولم يمنعهم رسولكم مدين صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهم وكما وصل منعن أن يرملوا إني فعليان على شواذ كلالكي كلها دمان تودب إلا الإبغاء دمرين عليهم يكركوا ضوء دمرين جماهنه وحيري عبد الله بن عباس صحابي جليل كي وحيري قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كيسا صوغلي وأصحابه أصحابتي سنوي صوغلين مكة مقالة مكة ميليتان كاسوا قورمين وتصنادي سابعة هذه عمرة الذي ترى عمرة القضاء وعمرة الحديبية أما غزوة الحديبية واحد الحديث بكدم بيسي عمرة القضاء سنة إيضا سنادي سابعة هذه هجرية أيه هذا مركا نبي أصحابتي ساسوا قالين مقالة مكة فقال المشركون قال هذا وحي لهذين إنه حالي شاني يخدموا حسوقلي عليكم كركينة قوم قال سوقلي ينقومكم قد وهندهم أي ضعيف صي ثم يترم مقالة مدينة اللي ينهضوا عن الذي ضعيف صي عمرة الحديبية اللي تري مركي لقى نقول حصار كي نبي قال سميه صلوات الله وسلامه عليه نحو كنقضي حديبية وكنقضي انت عمرة كانت عمرة القضاء ولقوه سيدي هشيس كقرناد نبي سهيل بن عمرو صلوات الله وسلامه عليه إسلام صحيحين سيدي كقرناد intaysan cumrada u soo noqon labada sano intii u dhaxaysay sanadkaas waxa ku dhacay magaalada dhan waxa ku dhacay malaria aad u xoog badan ku dhacday markaas dad xataa u dhinteen dad kamid ah dadkii marka cumratul xudaybiya ka qayb galeen ayaa u dhinteen markii ay magaalada soo galayeen ba mushrikiintii quraysheed ee magaalada maka haystay markaas waxay yiraahdeen wali aan laga xoreyn ayaa waxay yiraahdeen waxa idin soo galaya maantay dad waxa soo galaya malaria macnaha qandadii madiinaad ay tabar daraysay oo aad u tabar darane bal sida tabar darada ah ay u dawaafayaan aan fiirsanna ayay yiraahdeen jibriil baa nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegay inay sidaas is ogeysiiyeen cabsina waa laga qabi karaa markaas inay haday tabar daro aad u zaa'id ay ku arkaan heshiiskii iyo wixii qornaayo dhan ay ka baxaano ay yiraahdaan intaan kulligood baan hal mar inta ku yaacna aan qabqabano inay yiraahdaan lagama aaminahan marka jibriil baa nabiga u sheegay markii loo sheegay nabigu dhoolatuska ciidan lagu sameeyo hal la sameeyo qof walba go'aysa inta halkaas gacantiisa midigta hoosteeda inta galiya murqaha hal ku soo hal rucleeyo yiriyo dawaafka aan ku marno yiri orad aan ku marno yiri ruclaan ku marna biiro marka dhoolatus ciidan sidaas ayaa loola jeeday markaas ولمن كان لو قلبي تبيني يبي أيكم أي مركز فقال المشركون ما وحي هذا إنه حال شان يخدموه حسوقني عليكم كركين قوم قال سوقني ينقومكم قد وهندهم أي تبرد الرئيسي صي أي ضعيف صي حمى يترب مقالة مدينة قنديري فأمرهم النبي مركز محمد صلى الله عليه وسلم أن يرملوا إن يفعليان على شوارد كلالكي كل أسلاتة صدح ذا هاي صدح ذا كلا هراء صدح ذا وريق هراء إن يفعليان وأن يمشوا إليه سعدان ما بين الركنين كيمانيين كدحدود الركنين كيمانيين كما يشعر حيصة إني مريان أي رعلاه توشيان وترتيب يوم مران صدح ذكره هنا نفتي كده ووحي هذا اللي بيشان ليه إني سعدان ركنين كيمانيين كدحدود ترتيبها وسعد المركي كسو آديه وريقا سيكو آديهين meelaha jardiimada ay fariistaan ay wax ka daawanayaan dhinaca kale jireen leeyahay
shaamiyeenka xaggooday jireen la marka dhinacaas markaad maraysaan waxa la yiraahdaa tartiib isaga soo socdaa waan yamshu inay socdaan bayna rugnayn labada rugnayn dhexdooda inay socdaan baa la yiri walam yamna'hum uma diidin baa la yiri an yarmalu inay rucleeyaan walam yamna'hum uma diidin an yarmalu inay rucleeyaan baa la yiri alla shawada kalalkii kullaha dhamaantoodba illa al-ibqaa'u dhimrin calayhim iyo korkooda loo dhimrinaya maahane sabab kale u diiday nabigu inuu yiraahdo todobada wareegba ruclaha lagu maray inuu yiraahdo wax u diiday oo aan ahayn naxariisu saxaabada u naxariisanaya maysan jirin naxariistaas u diiday الحديث السادس حديث كاللحادنا عن عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر إنه يري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كسان الكحين يقدم مكة مقالة مكة مركو سوق لي إذا استلم مركو تاب صدب يري الرقن قال سوداء مذوبا أول ما يضوف مركو وريقي مركو وقوه الرئيس يري معناه أول الضوافيه وريقي مركو وقوه الرئيس يخب إنه دقدقي 3 أشواط صدح كان إنه دقدقة يبيله صدح كان عبد الله بن عمر وإسلا حديث كعبد الله بن عباس أساق نفسدي سحوم كي سرع عسنا وحجري رأيت رسول الله ونركيبه صلى الله عليه وسلم رسول كيانك حين يغدم مكة مقالة مكة مركو سوقلي مركز مقالة مكة سوقلي أما حجها وسوقلي أما عمرها وسوقلي إذا استلم هدو تاب صدا الرقن الأسود رقن جمدو هدو تاب صدا واستلام الحجر كي وصميه رقنiga madow macnaha waa rugniga uu xajarul aswadka ku dhex jiro iyo xajarka nafsadiisii istilaamka markuu ku sameeyo awwal ma yaduufu marka uu wareegayo marka ugu horeyso dawaafkiisa inuu bilaabo marka uu rabo ilaa halkaas ay sunno tahay in laga bilaabo halkaas ay meesha la yiraahdo xajarul aswadka muqaabilkiisa in laga bilaabo hadii meel kale qofku uu ka soo bilaabana loo tirin weeyo wareega uu soo wareegay ilaa uu xajarul aswadka wareegiisa ku yimaado xajarul aswadka markii muqaabilkiisa uu jooga markaas ku loo leeyahay wixii wareegi ka horeeyay uu soo sameeyay loo tirin weeyo halkaas ayaa la rabaa inuu ka bilaabo dawaafkiisa marka awal ma yaduufu mar wareegayo marka ugu horeysa yaqubu degdegayo rasuulku 3 aswaadin 3 kal buu degdegayo oo 3 kal ayuu degdeg waa 3da kal oo ugu horeysa oo ramalku uu ku jiro ramalka hadda aan soo marnay Abdullah ibn Abbas inuu tilmaamay fuulihi hadda aan soo sheegnay Abdullah ibn Abbas inuu sheegay 3da kal oo ugu horeysa 3da wareego ugu horeysa uu ku jiro ayuu degdegayo rasuulku degdegay oo macnaha socodkaas orodka ruulaha camal uu sameeyay الحديث السابع حديث كتضباطنا واكو عن عبد الله بن عباس وحال وري عبد الله بن عباس صحابي قال لي رضي الله تعالى عنه قال إن عباس يري طاف النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا ضوافي النبي كعبده كوريغي في حجة الوداع سقوتين حج كذا حديث على بعير بكل ضوافي بعير كركيس نيف قال كركيس يستلم حاله تابسنا يا يو ضوافي بلا الركن بمحجن بكورده ku taabsanaya wiilay dawaafkii la leeyahay xajkii la leeyahay xajjada wadaaci rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi dawaafkii markuu dawaafayay asagoo markaas neef geel saaran ayuu dawaafay wuxuuna ula jeeday boqolaalkii kun oo saxaabada ahaa oo la socday inay amalkiisa wada fiirsadaan oo acmaasha ay kulligood kaga wada baydaan ilaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu yiri khuduu anni manasikakum buu yiri acmaashiina aniga iga qaato yiri acmaashiina dhamaanteedba aniga iga qaato yiri si marka dadkii boqolaalku kun oo la socday acmaasha ay u suurta gasho qof walba inuu uga qaato ayuu neefka geela korkiisa asagoo saaran u dawaafayay markii xajarul aswadka uu ku yimaado oo istilaamka waqtigiisii uu inuu sameeyo rabana bakooradu sida ugu taabanay xajarul aswadka ku soo taabanay marka daafa nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabiga ayaa dawaafay bi fi xajjati alwadaa'i sagootinta xajkeeda dhexdeedii cala baciirin buu ku dawaafay neef geela korkiisa geel yastalimu xaalahu taabsanayo rugniga bimahjanin bakooradu ku taabsanayo ayuu dawaafay bi الحديث الثامن حديث كسيدات أحاديث باب كميده عن عبد الله بن عمر وحال قولي الصحابي عبد الله بن عمر اللي يراهده رضي الله تعالى عنهما أحاديث باب كورني انت بدن وأقول لبدود وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر يصد ومرينيه عبد الله بن عمر وحال قولي رضي الله تعالى عنهما قال إن عمر يري لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما أنا لكن يستلم إسقوا تابسني من البيت كعبده إلا الركنين ركنينك ما أنا وحكى لسوا كتاب سنة يمانا لكن ركنينك اليمانيين يمن تلوني سبيعي بروي واكو
rugnaynka yamaaniyeenka maahna wax kale asagoo ka taabanaya maanan arkin. cabdullahi ibnu cumara dad taabiciinta ahi mar ay weydiiyeen masaa'il afara oo yidhaahdeen macnaha masaa'ilkaas maxaad ula jeedaaya waxaa ka mid ahaa su-aalihii la weydiiyey kacbada derbiyadeeda ama arkaanta afarta ah oo kacbada marka aad dawaafka samaynayso mid ka mida adoo taabanaya kuma aragno, rugnaynka yamaaniyeenka maahane inta kaleeto maxaad u taaban weysa oo kacbada derbiyadeeda. ile dadka caamada aha inta badan waxay iska sameeyaan hadday helaan oo fursad ay ka helaan ay kacbadoo dhan wareegeeda markay ku wareegayaan fursadba hadday ka helaan waxay jecel yihiin derbigeedoo dhan inay gacanta wada mariyaan, geeska gees ay kusoo wareejiyaan ay jecel yihiin. marka kacbada adoo ma aanan ku arkina la yidhi kacbada taabanaya meel aan ahayn rugnaynka yamaaniyeenka intaan ahayn, rugniga uu xajarul aswadka ku jiro iyo midka asaga ka dambeeya oo asaga wareega uga horeeya wareega hortiis lagu yimaado waxaan ahayn adoo gacantaada taalaya kuma aragnay maxaa kugu dhacay baa la yidhi. markaasuu wuxuu yidhi nebigu mid kala taabanaya kumaanan arkin, nebigan ku raacaya bu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh. oo shaamiyeenka rasuulka taabanaya iyo arkaanta kaleta marnaba maanan arkin u yidhi. lam ara nabiya can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyay lam ara nabiya ma aanan arkin sala allahu aleyh wali wasalam qaala inuu yidhi lam ara nabiya ma aanan arkin sala allahu aleyh wali wasalam yastalimu isagoo taabsanaya min albeyti kacbada ila rugnayni labadii rugni maahana rugnaynkii alyamaaniyeyn ee yamanta loo nisbeeyey bir wey. wa kow baabu tamatuci hada kan baabu tamatuci raaxaysiga baabkiisii weeye buu yidhi. alxadiiث اlأwl xadiiska ugu horeeya axaadiista tamatuca can abi xamzata waxaa laga wariyay abi xamza ninka la yidhaahdo nasr bni cimraan adubaci ahaa buu yihi nasr ibni cimraan adubaci qaala inuu yihi sa'altu bna cabaasin cabdullahi bni cabaas waxaan wax ka weydiiyey can ilmutcati mutcadaas la yidhahdo mutcatu lxajka ayaan wax ka weydiiyey fa amaranii wuu i amray bihaa mutcatu lxajki wasa'altuhu waxaan wax ka weydiiyey can ilhadyi hadiyadii kacbada la geynayey xoolihii hadiyadda ahay oo kacbada la geynayana waxbaan ka weydiiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi fiihi fi lhadyi hadyiga dhexdiisii jazuurun geel ba ahaaday aw baqaratun amase looba ahaatay aw shaatun amase riba ahaatay aw shirkun amase wadaagsi ba ahaaday fii damin dhiig la wadaagsado. qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahdo abi jamra nasri ibni cimraan adubaci wakaana naasan dad waaba iyakoo karihuu dhibsadeen haa mutcadii fanimtu waan seexday fara-aytu waxaan arkay fi lmanaami hurdada dhexdeedii kaana insaanan sidii ayadoo qof yunaadi uu naadinayo xajun mabruurun wa cumratun mutaqabalatun camaluka adiga camalkaagii xajun xaj weeye xajkoo mabruurun lagu baari noqday wa cumratun cumro weeye cumradoo mutaqabalatun la aqbalay. faataytu bna cabaasin cabdullahi bni cabaas baan u imid faxadastuhu waan kaga sheekeeyey ru'yadaydii faqaala markaasuu wuxuu yidhi allahu akbar sunatu abilqaasimi almutcatu mutcadu sunatu abilqaasimi qaasim aabihii sunadiisii weeye buu yidhi. abi jamra ninka kunyadiisa la yidhaahdo magaciisana nasr bni cimraan adubaci la yidhaahdo waxaa laga wariyey taabiciga isaga qaala inuu yidhi sa'altu bna cabaasin cabdullahi bni cabaas waxaan wax ka weydiiyey can ilmutcati mutcada la yidhahdo mutcatu lxajka. waa mas'alo wuxuu u weydiinayaa markaas in badan oo saxaabada ka mid ah ay ka doodi jireen oo ay diidi jireen weliba ay aada u nahiyin jireen cumar bnu alkhadaab iyo cuhmaan ibni cafaan iyo rag fara badan oo saxaabadaha diidi jiray. marka sa'altu bna cabaasin ibn cabaasan waxaan weydiiyey can ila mutcada waxaa la yidhaahdaa in lala yimaado cumro in lala yimaado fi ashhuri alxaji qabla alxaji cumro oo lala yimaado fi ashhuri alxaji qabla alxaji bilaha xajka dhexdooda waxaa lala imaanaya cumro xajka ka hor baa lala imaanaya cumrada acmaasheedii marka lala yimaada la xalaaloobaya hadhowna xajkii yowmu tarwiya waxaa laga xarmanaya magaalada maka gudaheeda. marka mas'aladaas iyadaa taas ayaa cumrada la yidhaahdaaye waxaa la yidhaha mutcada la yidhaahdaa. waxaan weydiiyey cabdullahi bni cabaas inuu yidhi fa amaranii wuu i amray bu yihi bihaa mutcadii buu i amray samee buu iyidhi bu yidhi samee ayuu iyidhi bu yidhi.
وسألته وحن وحكويدي عن الهدي هدينا وحبان كويدي هدية كعبضة لو كيني يوم حال كيني حولها هدية هدي أنت لو كيني كراه هو مركا هدي وكان صحياه محيهم بان دبيل فقال مركا سوح يريد فيه في الهدي هدي قد حديث سجور قيل بقى هذا نيف قيله أياد هدي آد مركاس آد كدقي كرتايو قفك متمتع عمرضا مركاس كنت تمتعين لغربي قيل باد كدقي كرتا أو بغارتنا مثل الله نيفلا أو شاطنا مسري أو شركنا مثل وذاكس في دم لو ذاك سدابي ليق لو ذاك سدو أو تضبطي قفوض iyo wixii ka yari neef gal ay wada qashaan ama todobadii qofood iyo wixii ka yari neef loo ay wada qashaano ay markaa hadiyigi tamatuca ka waajibayay markaas iyo qiraanka iyo tamatuca labadaba hadiga ka waajibayay hadiyigi ka waajibayay markaas ay isaga bixiyaan qaala markaa wuxuu yiri abi jamra nasr ibn imran ad-dubai ba wuxuu yiri wa kaana unaasan dadwaab iyakoo karihuha dhibsadeen dad baa dhibsaday biir oo mutcada aad u diidi jiray oo reebayay عمر بن الخطاب وكمله وحديه شري فرنك القرآن كإلهي هدان فيرنا وأتم الحج والعمرة لله بإله إليه سبحانه وتعالى حج كي عمرضه من والبطام تام يالا بوليه هاي بويل تام يالا هدان سنة الرسول كفيرنا رسولك موسى حلال بين بوليه حتى يبلغ الهدي محله سيدا سيويل عمر بن الخطاب ليه شري مركا ضبا بسدين بويل فرأيت وحنا فنمت وان سيحضي بن نصر بن عمران الضبعي وان سيحضي مركي عبد الله بن عباس المسألة سوي في ذيك قدال بان سيحضي فرأيت وحنا في المنام هردد الأحدى كأن إنسانا سيدي أيضا غف ينادي ونادينا أيه حج مبرور وعمرة متقبلة سياسا كوك عيب الغف نادينا عمل كادق عمل كاجي حج وهي حمل حج مبرور لقبار النغضي وعمرة عمروي ومتعة متعوية متعة متقبلة لأقبليده ومتعلق أقبلي فأتيت ابن عباس عبد الله بن عباس بانو يمد بيره فحدثته أن وشك فقال مركزوه إلى الله أكبر واستعظام رؤيا في بشاريته وكل بشاري سنة سيأي أوافق ذي رؤيا في يده في يدي سيأي أوافق ذي سنة أبي القاسم المتعة متعة سنة أبي القاسم قاسم أبيه سنة سيوي الحديث الثاني حديث كالبعض حديث باب كمدي عن عبد الله بن عمر وحال قولي صحابي قال لي هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن عمر إنه يتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كيسايا تمتعي بيل في حجة الوداع سقوتين حج كيديب تمتعي بالعمرة عمراء يكو تمتعي للحج حج لقاريه وأهدى ونهديي فساق وحو كحيي معه وسق معيسى الهدي هدي بو كحيي من ذي الحليفة مكان كذي الحليفة اللي يرادوه كسوى كحيي وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كيسو وبالله ضيع ماشي فأهل وحو حرمضي واكو فأهل وحو حرمضي بيري بالعمرة عمرة أيو حرمضي بالرسول صلى الله عليه وسلم عمرة أيو حرمضي ثم أهل بالحج صوصاص ما حكتوه ثم أهل بالحج هدنا حج بو حرمضي بيري وتمتع الناس ضدك ويتمتعين بيري ويراحيسين ضدك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سميع ساها فأهل ناسكي وحو حرمضي بالعمرة عمرة إلى الحج حج لقى قاريه فكان من الناس ضدك وحاكم إذا من تمتع فكان من الناس ضدك وحاكم إذا هذا من وف هدي سوك حيي فساق الهدي هدي كحيي من ذي الحليفة مكان كذي الحليفة اللي راك سوك حيي ومنهم وحاكم إذا ضدك من لم يهدي دان هديين من هديا سوك حيين فلما قدم النبي نبي مركو صاقنا صلى الله عليه وسلم مكة مقالة مكقالة وحير للناس ضدك وحكيري من يكن قفكي أعظم منكم أنك حالوا إذن كم قد أهدى إنه هدي وسوك حيي فإنه من كان الله يحل حلال نغرمي له إسقى من شيء أي شيء حلال نغرمي شيء وحرام منه إسقى كحرامها حتى يقضي حجه إلى حج كيسو قدنيه
waman lam yakun qofkaan ahayn minkum idinka xaalow idin ka mid yahay adaa inuu hadiyeeyey falyaduf ha dawaafo bilbeyti kacbada wa bisafa walmarwati safa iyo marwana ha dawaafo buu yidhi walyuqasir hana gaabsado bu yidhi walyuxlil hana xalaalooba bu yidhi waa kow walyuxallil hana xalaalooba buu yidhi wy walyaxlil hana xalaalooba buu yidhi uma liyuhilla ha xarmado bu yidhi bilxaji xajkii walyuhdi hana hadiyeeya buu yidhi wy waman lam yajid qofkaan helayn hadiyan hadyi falyasum ha sooma 3 ayaamin 3 maalmood fi lxaji xajka dhexdiisii wa 7 toddobana ha sooma idaa rajaca markuu noqdo ilaa ahlihi reerkiisii markuu noqdo fadaafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulkiisa ayaa dawaafay xiina qadima markuu soo galay ilaa makata magaalada mako wastalaba wuxuuna taabsadaa rugna rugnigii awala shayin shay midkii ugu horreeyey buu taabsaday uma khaba wuu degdegay 3 ashwaadin kanalyaal 3 min 7 toddobadii ka mid ah wamashaa wuxuuna socday 4 4na wuu socday warakaca wuuna rukuucay wuu tukaday buu yihi xiina qadaa dawaafahu dawaafkiisi markuu dhamaystana wuu tukaday bilbeyti xiina qadaa markuu dhamaystay dawaafahu wareegiisii bilbeyti kacbada uu ku wareegayey cinda almaqaami maqaamu ibraahim agtiisa ayuu ku tukaday maqaamu ibraahim agtiisii biragcatayna 2 ragc ayuu tukaday uma sallama wuu salaamaystay wansarafa wuuna gadoomay faataa wuxuu tegay asafa buurta safa layidhaha fataafa wuu wareegay bayna safa safay walmarwati marwe dhexdooda 7 ashwaadin 7 kal buu ku wareegay uma lam yuxilla ma xalaaloobin buu yidhi min shayin shay uma xalaaloobin shaygoo xaruma minhu isaga ka xaaraam ahaa buu yidhi xataa qadaa ilaa uu dhamaystay xajahu xajkiisii wanaxarahu xataa naxara ilaa uu gowracay hadyahu hadyigiisii yowma naxri gowraca maalinkiisi wa afaadahu xataa afaada ilaa uu macnaha shubmay buu yidhi fadaafa uu soo shubmay waa fadaafa uu nafsadiisa uu soo shubo fadaafa uu wareegay bilbeyti kacbadii ku wareegay uma xalla waxaa xalaaloobay min kulli shayin ay kullu shayin shay dhammaantiisa u xalaaloobay shaygoo xaruma minhu isaga ka xaraam ahaa wafacala waxaa sameeyey mila ma facala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaa rasuulkiisa wuxuu sameeyey oo kaleeto man ahdaa dadkii hadyi waday dadkii soo hadiyeeyey ayaa sameeyeen fasaaqa man ahdaa qofkii soo hadiyeeyo fasaaqa kaxeeye alhadyi hadyigoo min annaasi dadka kamid ahaa buyidhi cabdillahi bni cumar saxaabiga la yidhahdo waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi baa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma tamataca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaa rasuulkiisa ayaa tamatucay fii xajati lwadaaci sagootinta xajkeedii bilcumrati cumro ayuu ku tamatucay ila lxaji xaj laga gaarayo tamatuca rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaan soo niri horta tamatuca waxaa la yidhaha tacriifkiisa in lala yimaado cumro bilaha xajka gudahoodiina lala yimaado xajka ka horna lala yimaado cumrada acmaasheedii inta lagu xalaaloobo acmaasheeda la dhamaystiro la xalaaloobo magaalada maka gudaheeda la iskaga sii nagaado yowmu tarwiye markii la gaaro markaas xaj uu qofku xarmado maka gudaheeda uu ka xarmado sidaa ayaa tamatuca la yidhaahdaa sidaas ayaa tamatuca la yidhaahdaa acmaasha rasuulka asxaabta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markii ay xajatulwadaaci marka ay sheegayaan in badan ayay isku khilaafeen oo qaar waxay sheegeen inay rasuulku uu qaarin ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo xajkii iyo cumradii uu xiriiriyey oo xaj iyo cumro uu soo wada xarmaday camalkoodiina markaas uu hal mara la wada yimid qaarna inuu mutamatic ahaa bay sheegeen qaarna inuu mufrid ahaa bay sheegeen rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh isugeyn khulaasatu lqowlka asxaabu rasuulillahi iyo taabiciinta iyo weliba jumhuuru salafi waxay markaas waxay jumhuurtooda waxay isku raaceen camalka rasuulku rasuulku inuu qaarin ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh camalka rasuulkuna qiraan uu ahaa ayay isku raaceen oo xaj iyo cumro uu soo xarmaday markii hore xaj buu soo xarmaday rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cumruu soo xarmaday aan ku idhaahdo xajkiina waadi alcaqiiq habeenkii uu yimid oo subaxdii markuu soo toosay ayuu wuxuu yidhi ataanii aatin min rabbi rabbigay xaggiisa waxa iiga yimid mid yimaada ayaa iiga yimid jibriil baa ii yimid buu yidhi
wuxuu yiri biir waadigan mubaarag ah dhexdiisa ku tuko waxaadna tiraahdaa cumratun fi hajjatin leeyahay oo xajkaagii cumradaadii aad soo xarmatay xaj ku dar ayuu yiri halkaas waadi al-aqiiq markii uu joogay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi xajkii cumradii soo xiriiriyay hadina dil xulayfa ka soo kaxeeyay qaarin buuna ahaayo camalkiisu xaj iyo cumro isaaran oo hal mar acmaashoodii lala wada yimid ayuu ahaa tamattuca marka la sheegayo Abdullah ibn Umar hadda uu sheegayo oo leeyahay tamattuca rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wadaa'i bil umrati ila al-hajj tamattuca Abdullah ibn Umar nabiga uu ka sheegayo waa amarkiisii weeye nabigu wuxuu amray sallallahu alayhi wa sallam alayhi waxaan tagi doonaa matniga xadiiska aan ku aragnay dadkii aan hadiyiga wadin rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu ku yiri markii acmaashi cumrada la sameeyay magaalada Maka markii inta la yimid maalintii afraad bisha dilxijja ay afarta ahayd markii la yimid ayaa waxa la sameeyay dawaafkii haddana sacyi buu sameeyay markii sacyigaas uu sameeyay buu wuxuu yiri dadkii aan cumrada wadin dadkii aan hadiyiga wadin oo xoolaha hadiyada aan wadin adinku waxaad sameysaan inta xalqi inta sameysaan iska xalaaloob yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi markaasay waxay yiraahdeen xalaaloobidan xalaaloobayna waa mid sidee ah xalaaloobid dhameystirana markaasuu yiri xalaaloobid dhamaystiran oo qofku wax allaaliya wixii markii hore soo acmaashan xajka darteed ihraamka dartiis wixii ugu xaraam noqdo dhan ay wax xalaal noqonayaan sameeyay doodo badan iyo waatay ka dhaceen oo markaas rag far badan saxaabada ka doodeen ay yiraahdeen maalinta la yiraahdo sideedaad miyan markaas anaku aan dhaqaaqaynaa min xageeda u dhaqaaqaynaa wa madaakiruna taqduru macna ma amaniyan bay yiraahdeen ayadoo madaakirta dakriyalkeena ay dibdibcayaan oo xal oo dhan xaasaskeena aan markaas aan isticmaalaynay miyan maalinta afraad maalinta sideedaad waxaan u dhaqaaqaynaa bay yiraahdeen markaas rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu ku yiri law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu al-hadiy buu yiri hadii arintayda waxa aan ka soo tagay hadda ka bacdi aan qaabili lahaa haddaan ogahay camalkan sida inaad uga doodaysaan xalaaloobidan hadiiba ma aanan soo kaxayeen haddaanan hadii soo kaxayeen waan xalaaloobi lahay oo cumradan ku xalaaloobi lahaa sida ayuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu la jeeday baa yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi hatta kuwii xajka soo xarmaday wuxuu yiri xajkii inta cumro u fasaxdaan cumrada ku xalaalooba waxaana loola jeeday qaacidadii markaas ay jaahiliyadu aaminsanayeen oo ahayd cumratun fi ashhuril hajj min afkar al-fujur 'inda Allah subhanahu wa ta'ala qaacidada la tirtirinteeda loola jeeday in la tirtiro waxay aaminsanayeen cumro oo xajka bilihiisa gudaheeda la yimaada wax ilaahay lagu caasiyo waxa ugu daran weeyay saasay aaminsanayeen qaacidada mushrikiintii carbeed ay aaminsanayeen qaacidada tirtirideeda ayuu ula jeeday baa la yiri in xajkii xataa kuwii xajka soo xarmaday oo yiraahdeen Aisha iyo ka dad badan ay kamid ahaayeen yiraahdeen waxaan xaj ahayn ma baana noqon yiraahdeen cumraba ma noqon ila qaacidadii hore wali ku dhaganad dadka qaarkiis ku dhaganad marka qaacidadaas loo tirtiraa waxa la yiri cumradiini xajkiini cumro u fasakha cumradaasna ku xalaalooba baa la yiri dadka aan hadiga wadin ama dadka hadiga wada markaas ilaa yawm nahri la gaaro hadi in la gowraco ma banaanayso ilaa hadiga uu gowracana camalkii inuu ka xalaalooba ma banaanayso waa isku xiran yihiin uu markaas u soo xarmaday tamattucan marka rasuulka laga sheegay waxa weeye waa wixii uu amray waxa la yiri marka tamattuca rasuulka saxaabada ay ka sheegayeen qaarkood sida Abdullah ibn Umar waa amarkiisii dadkii mayaasiirta aan ahayn dad yar ayaaba hadiga wadeen nabigu ka mid ahaa dadkii hadiga wadeen ma ahna intii kala ficilkii wixii rasuulku amray bay ka hadlayaan marka wuxuu yiri tamattuca rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ila rasuulkiisa ayaa tamattucay في حجة الوداع سجوتين تحج بالعمرة عمره كنت تمتعي إلى الحج حج لقى جاريه وعمرة عمل كذيب كنت تمتعي وكل راح يسي إلى الحج لقى جاريه عد كصاهي وحي وقت أعماش الرسول كإنه رسول كإنه سنكحل لوبين عمل كيسي سجاها إنه سنكحل لوبين إلى حج كور ماضي وسنكحل لوبين سوى حرمي وهذا العدد سيدو ذي الحليفة سيدو قصوا حرمي مركز تمتع عبد الله بن عمر النبي وكشجي وحوي وأمركي uu bixiyay oo saxaabada aqlabkoodii wax yar ma ahana inta kale Abi Talha iyo Nabiga iyo Abu Bakar iyo rag dad yar ay kamid yihiin iyo Abi Musa al-Ash'ari iyo Abdul Ali ibn Abi Talib oo Yaman ay ka yimaadeen dad yar un baa waxay wadeen hadiga waday inta kale to marka waa gaalibka sidii lagu amray baa tamattu ahaa marka tamattu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ila rasuulkiisa tamattu fi hajjati al-wadaa'i sagotinta xajkeeda bil umrah ku tamattu ila al-hajj hajj laga gaarayo wa hadaawuna hadiyay وهدي رسولك سو كخيي وهدا وهدي فصاغ وحو كخيي معه وسق عيسى هدي
min dilxulayfati makaanka dilxulayfa la yihahdo kasoo kaxeeyey wabada-a wuu bilaabay saxaabigu markaas intaas markii ijmaalkaas uu kuu sameeyey tafsiil ayuu haddana sameeyo acmaasha qaabkii uu u bilaabay iyo qaabkii u dhameeyey buu markaas intaas hore waa ijmaal acmaashii rasuulku kuusoo ijmaaliyey weye wabada-a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulkiisu wuu bilaabay buu yidhi camalkiisa ayuu bilaabay fa ahalla wuxuu xarmaday bilcumrati cumro ayuu xarmaday buu yidhi cumruu soo xarmada markii hore ko cumro keligeeduu soo xarmaday uma ahalla bilxaji haddana xaj buu soo xarmaday oo cumradiisii markii habeenkii waadilcaqiiq markii u yimid ayaa waxaa la yidhi cumratun fii xajatin dhehe baa la yidhi sidaasuu jibriil ku amray jibriil uma ahalla wuxuu xarmaday yidhi bilxaji xaj ayuu xarmaday fatamataca annaasu dadkii baa tamatuceen dadkaasoo maca rasuulillahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulkiisa maciisa ahaayeen tamatucii rasuulka markii hore laguu sheegayey waa kan rasuulku u amray fatamataca annaasu baa lagu yidhi dadkii baa tamatuceen dadkaasoo maca rasuulillahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulkiisa maciisa ahaayeen fa ahalla faacilkoodu waa annaasu fa ahalla annaasu dadkii waxay xarmadeen bilcumrati cumray xarmadeen ila alxaji xaj laga gaarayo cumray xarmadeen waa kow fa kaana waxaa ka mid ahaa min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man ahdaa dad hadiyeeyey oo hadyi soo kaxeeyey man ahdaa dad hadiyeeya ka mid ahaa oo fasaaqa kaxeeye alhadyi hadyi kaxeeyey min dilxulayfati makaanka dilxulayfa la yihah kasoo kaxeeyey wa minhum waa dadka in yar ayay ahaayeen dadkaas wa minhum waxaa ka mid ahaa man lam yuhdi dadaan hadiyeynin way ka mid ahaayeen dadaan hadyi soo kaxayna way ka mid ahaayeen waa agsariyada tobanaanka kun oo rasuulka la socday agsariyadooda sidaa ahaa falama qadima nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu soo galay makata magaalada mako qaala wuxuu ku yidhi linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi aan hadyiga wadin wuxuu ku yidhi man lam yakun qofkaan ahayn minkum idinka xaalow idinka mid yahay qad haddaa inuu hadiyeeyey qofkii idinka mid ahoon hadyi wadin fa inahu mankaasi waa kow qaala wuxuu yidhi qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi man yakun miya man yakun man kaana miyuu yidhi falama qadima nabiyu sala allahu alayh ali wasalam markuu soo galay nebigu makata magaalada mako qaala wuxuu ku yidhi linnaasi dadkii man yakun qofkii ahaaday minkum idinka xaalo idinka mid yaha man kaana miyu mesha idinkaga dhigay man kaana qofkii ahaaday minkum idinka xaalo idinka mid yaha qad haddaa inuu hadiyeeyey oo hadyi soo kaxeeyey fa inahu mankaas laa yaxilu xalaal noqon mayo lahu mankaa isagaa min shayin shay u xalaal noqon mayo min shayin ay shayun shay u xalaal noqon mayo shaygoo xaruma minhu isaga ka xaraam noqday oo ixraamka dartii uga xaraam noqday xataa yaqdiya inta uu dhammaysanayo xajahu isaga xajkiisii qofkii hadyi wada wax allaaliya wixii ixraamka dartiis uga xaraam noqday u xalaal noqon mayaan ilaa hadyigu uu gaaro maxilkiisii uu gaaro yowmu naxri la gaaro xataa yabluga alhadyu xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiisii uu dhamaysto oo uu markaas yowmu naxri la gaaro hadyiga uu gowraco waman lam yakun qofkaan ahayn buu yidhi minkum adinka xaalow idinka mid yahay ahdaa inuu hadiyeeyey qofkaan hadiyad soo wadina iska fara banaan falyaduf ha dawaafo buu yidhi bilbeyti kacbada ha ku wareego wa bisafaa walmarwati safa iyo marwana ha ku wareego walyuqasir hana gaabsado buu yidhi walyaxlil hana xalaaloobo timaha inta gaabsada ha xalaaloobo uma lyuhilla haddana ha xarmado buu yidhi bilxaji xajkii ha xarmado yowmu tarwiye markii la gaaro maalinta sideedaadka ah walyuhdi hana hadyi bixiyo buu yidhi wey ha hadyi bixiyo oo neef ari a iyo waxa qala buu yidhi wey ama 7 neef lo ha wada qaleen ama 7 neef geel ha wada qaleen dadkii miyaa wada heli kara markii horeba way ka soo tageen waman lam yajid qofkaan helayna hadyan hadyi qofkaan helayna falyasum ha sooma 3 ayaamin 3 maalmood ha sooma buu yidhi fil xaji xajka dhexdiisa ha ku soomo xajka dhexdiisa 3 maalmood ha ku soomo waxaa sunno ah ayaa la yidhi markaas iyada ah qofkaas hadyigaas uu ku waajibo 3 maalmood inuu soomo doonaya maalinta inuu yowmu tarwiye ka hor inuu xarmado ayaa markaas u sunno ah si xajkii dhexdiisa inuu ku soomo ay ugu suurto gasho oo maalinta lixaadka ah inuu inta markaas asagoo xarman uu maalintaas uu soomo lixaad uu soomo 7aadna uu soomo 8aadna uu soomo si aysan markaas 9aad oo soonka aan loo sunayn dadka xarman aan loo sunayn ayaka si uusan u soomin haddii markaas ay dhacdo maalintaas inuusan xaraam kamuusan ahayn sunno maysan ahayn inay soomaane haddii uu rabana 7aad iyo 8aad iyo 9aad uu soomaya xajka dhexdiisa si ugu soomo xajkii dhexdiisa inuu ku soomo si ay ugu suurto gasho 10aad dee inuu soomo maysan banaanayn ayada
maysan banaaneyn taas waa yowmu naxrigii waa maalintii ciidii waman marka wuxuu yidhi falyasumha sooma 3 ayaamin 3 maalmood fi lxaji xajka dhexdiisa ku sooma wa7 todobana sooma bi lidah rajaca markuu noqdo ilaa ahlihi reerkiisa wadankiisi markuu tago fadaafa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaa rasuulkiisa ayaa dawaafay xiina qadima makata magaalada maka markuu soo galay xiina qadima ilaa makata magaalada maka markuu soo galay wastalama wuxuu taabsaday arugna rugnigii awala shayin shay midkii ugu horreeyey xaalo uu yahay buu taabsaday uma khaba wuu degdegay 3 ashwaadin kalalyaal 3 ayuu degdego min 7 todobadii kamid a wamashaa wuxuuna socday 4 4 wuu socday warakaca wuuna tukaday buu yidhi rasuulku sala allahu alayh wali wasalam xataa qadaa ilaa uu dhamaysto dawaafkiisa bilbeyti kacbada uu ku wareegayay cinda almaqaami buu ku tukaday maqaamu ibraahim agtiisii biragcatayn 2 ragca ayuuna tukaday uma sallama wuu salaamaystay buu yidhi wansarafa wuuna gadoomay faataa wuxuu tegay safa ayuu tegey fadaafa wuxuu wareegay bisafa bayna safa safay walmarwati marwe dhexdooda 7 ashwaatin 7 kal uma lam yaxil ma xalaaloobin min shayin shay uma xalaaloobin shaygoo xaruma minhu isaga ka xaraam ahaa xataa qadaa ilaa uu dhamaysto xajahu xajkiisii wanaxara xataa naxara ilaa uu gowracay hadiyahu hadigiisii yowma naxri gowrac maalinkiisii wa afaada waxataa afaada nafsahu ilaa nafsadiisa uu shubay oo mina xaggeeda uu ka soo shubay oo fadaafa uu wareegay bilbeyti kacbada uu ku wareegay bilu uma xalla waxaa xalaaloobay min kulli shayin shay dhammaantiibaa u xalaaloobay shaygoo xaruma minhu isaga ka xaraam ahaa wafacala waxaa sameeyey mila ma facala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaa rasuulkiisa wuxuu sameeyey oo kaleeto man ahdaa dadkii hadyi waday dadkii soo hadiyeeyey fasaaqa kaxeeyey alhadyi hadyigo min annaasi dadka kamid ahaa buu rawahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa saxiixiisa xadiidkaana ku wariyey alxadiidu thalith xadiidka 3 can xabsata waxaa laga wariyey xabsa gabadha la yihah zawji nabiga xaaskiisa ahayd radia allahu tacala canha anaha xabsa qaalad inay tiri ya rasuula allah ilaa rasuulkiisa maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu waa maxay xalluu way xalaaloobeen min alcumrati cumradii bay ka xalaaloobeen walam taxila anta adiguna maadan xalaaloobin min cumratika cumradaadii adiguna maadan xalaaloobin tamatucii rasuulka lasoo sheegay wixii loola jeeday bay ku fasirtay xabsa binti cumara faqaala rasuulku markaa wuxuu yidhi inni anigu labadtu waxaan dhajiyey ra'sii madaxayga waqalladtu waxaan u qoor xiray hadiyii aniga hadiyadaydii falaa axilu xalaaloobi maya xataa anxara ilaa an gowraca buu yidhi xabsa binti cumara gabadha la yidhahdo min ummaati lmu'miniina kamid ahayd zawji nabiga xaaskiisa ahayd sala allahu alayh waali wasalam waradia allahu tacala canha waxaa laga wariyay annaha iyadu qaalad inay tiri ya rasuula allah ilaa rasuulkiisiiyow markii amarka la bixinayay dadku ha xalaaloobeen ayaysan markaas aysan ogeynaysan goobjoog ahayn xabsa binti cumara dadka aan hadiyiga wadin ha xalaaloobin ama markaas markii la bixinayay ayaysan goobjoog ahayn waxay aragtay dadkii aan hadiyiga wadin oo dhan u xalaaloobay oo maryahoodii caadiga aha iska xirtay oo qof walba isdiibeeyey oo qof walba wuxuu raba uu samaynayo muxaramaatulixraamkii o dhan ay qof walba ay ku dhex jiro nebiga iyo salawaatullahi wasalaamu caleyhi dad yar oo dadkii mayaasiirulmuslimiinta ahaana ay sidoodii ay go-yaalkoodii cadadaa u xiran yihiin o ay xarman yihiin ayay aragtay markaasay waxay tihi maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu waa maxay xalluu way xalaaloobeen min alcumrati cumradii bay ka xalaaloobeen walam taxila anta adiguna maadan xalaaloobin maxaa dhacay maxaa isbedeloo jira walam taxila anta adiguna maadan xalaaloobin min cumratika cumradaadii kamaadan xalaaloobin qaala rasuulku markaa wuxuu yidhi innii anigu labadtu waxaan dhajiyey ra'sii madaxayga timahaygii baan dhajiyey macnaha ra'sii shacara ra'sii baa loo jeedaa madaxayga timihiisii baan dhajiyey oo waxa weeye talbiidka waxa uu rasuulka iyo saxaabadu iyo dadkaa timaha dheerdheer lahoo jummada iyo limada iyo timaha dhaardheer ay samayn jireen oo waxaa la yidhaahdaa ay ku samayn jireen marka ay ku talagalaan muddo dheer inuu xarmanaado nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu soo xarmaday bishii la oran jiray dilqacda oo 4 maalmood ay ka dhiman tahay wuxuuna rabaa ixraamkaas inuu ku gaaro 4 maalmood lagu daray 14 maalmood inuu xarmanaado ayuu rabaa oo yowmu naxri uu ku gaaro xarmashadaas uu ku gaaro ila hadyi buu wadaahe 14 maalmood timihii aan la shanlayn oo aan laga shaqayno oo aan la dhaqini waxa weeye way injiraysanayaan oo bahla iyo wasaq baa gelaysa talbiid ay ku samayn jireen oo miski iyo daawo iyo qalab kaleeto iyo la isku dardaro ayaa markaas timaha inta lagu dhajiyo ay sidoodaas u dhaganaan jireen oo wax cayayaan oo geli kara aan la arag marka timihii madaxaygaan dhajiyey buu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh talbiid baan ku sameeyey buu yidhi qalabkaas saliid iyo miskigaas iyo qalabkaa la isku dardaray baan ku sameeyey waan dhajiyo waxaan ku talagalay ixraam dheeraan ku talagalay waqalladtu hadiyadaydiina qoortaan usoo xiro oo hadiyadda wixii lagu geela iyo xoolaha lagu aqoonsan jiray xoolahaanu hadyi inay yihiin aan hadiyad baan soo kaxeeyo xoolahan qoorta hadiyad waxaan ugu soo xiray qalabkii calaamadihii lagu aqoonsan jiray
falaa axilu ma adigu muhiimaddu waxa weeye hadyi baan soo kaxeeyey falaa axilu xalaaloobi mayo xataa anxara ilaa hadyigaas aan gowraca bu yidhi wey dadkani laakiin wax hadyi waday laguma arko way iska xalaaloobi karaan bu yidhi wey rawahu albukhaari wallahu aclam